Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay arrin aad looga wada naxo taabanaysa qof walba oo Soomaali ah, taas oo in la dilay Almas. Waa kuma Almas? Almas waxay la dhalatay gabadha u dhaqaaqda arrimaha xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Elwad Elman. Almas waxay ahayd diblomaasi hore. Almas aabaheed Elman wuxuu ahaa nin u ololeyn jiray arrimaha nabadda xilligii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya, waxaana lagu dilay Muqdisho 1996. Almas aabaheed waxa uu ahaa nin caan ka ah magaalada Muqdisho. Almas Elman ayaa xabado ku dhaceen xilli ay la socotay baabuur gudaha xerada Xalane. Sidoo kale Nimcaan Hilaac iyo sawir qaade ayaa ka badbaaday weerar ay Amisom ku soo qaadeen, waxaana weerarkaas ku geeriyooday Almas Elman, Allah u naxariistay. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in geerida Almas Elman ay ahayd mid ku talagal ah eena shirqool ahayd. Walaasheen Elwad Elman ayaa shalay Qaramada Midoobay dhexdeeda waxay ka sheegtay in amniga Muqdisho uu soo hagaagayo, galabtana walaasheed ayaa isla Muqdishadii ay shalay amaaneysay lagu dhex dilay. Sawir qaadihii la socday Almas Elman ayaa gacanta lagu dhigay kadib markii uu soo qoray in weerar lagu soo qaaday isaga iyo Almas, kadibna uu ka badbaaday. Almasna ay dhabtiisa ku dhimatay. Meeshii la rabay in la soo xiro dadkii ka dambeeyay dilkeeda waxay soo xireen sawir qaadihii sheegay arrintan. Ilaa hadda booliiska ma aysan caddeyn sababta ka dambeysay dilka loo geystay gabadhaas. Qoyska reer Elman Cali Axmed waxay deganaayeen Canada, mar dhow ayay dalkooda hooyo dib ugu soo laabteen. Almas waxay ka shaqeynaysay arrimaha samafalka, waxayna ahayd diblomaasi ka tirsaneyd safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi. Soomaaliyey, qof walba oo waxgaradkiina haddii hortiina lagu dilay miyaynan ahayn doqonnimo? Haddii aad dib u raacdo dadkii waxgalka ah ee la dilay, waxay ogaan doontaan in dalkan iyo dadkan cidna u maqnayn. Ay Soomaaliyey kaca oo dhiig isku yeela.